shirkadda daabacaadda ee Sagaljet ayaa shaqaalaheeda magaalada Hargeysa u qabatay munaasabad ay ku abaalmarinaysay sida uu faafaynta warkan Hargeysa looga soo diray wariyahayga Maxamed Jaamac Umal. shirkadda Sagaljet ayaa qabsatay munaasabadda xaflad sanadeedka shaqaalaha oo lagu xusayay abaalmarinta shaqaalaha ugu wanaagsan shirkadda waxaana ka soo qayb galay dhammaanba shaqaalaweynaha shirkadda oo isaga kala yimid guud ahaan gobolada dalka iyo wadamada jaarka waxaana ugu horreynba munaasabadaasi si rasmi ah u daafray gudoomiyaha guud ee shirkadda Sagaljet Cabdi Yuusuf Ar. marka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa sharafi ah inaan idinku soo dhaweeyo isla markaana aan si rasmi ah idinku furo munaasabadda xaflad sanadeedka shaqaalaha ee 2018 waxaynu xusaynaa waa 2018 taasoo aynu sanad walba xilligan shaqaalaha shirkadda ee dhammaan laamaha gobolada iyo wadamada jaarka waxay isugu yimaadaan kulan ujeedadiisu tahay inay u dabaaldegaan horumarka iyo guulihii isdaba joog ahaa ay xaqiijiyeen sanadkii la soo dhaafay. marwaadna aadan oo ka mid ah haldoorka bulshada ayaa waxa ay bogaadisay horumarka ay samaysay shirkadda Sagaljet. waxaa sharaf weyn iyo farxad weyn ah inaan ka soo qayb galo munaasabadan waxay ka mid tahay waxyaabaha Somaliland noo ah dowlatus. geesta kale waxaa madasha ka hadlay Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo ah la taliyaha shirkadda iyo Cabdikariin Xaaji Muuse Muruqle oo ka mid ah mulkiilayaasha shirkadda waxayna xuseen in shirkaddu ay heerka ku gaadhay kartida iyo hal abuurka shaqaalaha kala duwan ee shirkadda Sagaljet. qofka ka maqal wanaagsan maalin ma gaadhin hadduu maanta haysto kaashka maanta uu dalbanaya wuxuu doono qofka ka shaqaale wanaagsanna sanad ma gaadhin oo waxay Soomaalidu tiraahdaa qofka Ilaahay xoolo la damco dadkeedu siiya qofka ka istiraatiijiyad wanaagsanna weliga ma gaadhin. waa sababta shirkadda Sagaljet ay uga murbaxday ama uga duwanaatay shirkadihii kale ee la facaha. inaan idin mahadnaqo haddii maanta aan shaqaalahaasi jirin halka maynaan gaadhnin oo levelka maanta aynu higsanayno maynaan soo gaadhnin. si kale haddaan u dhigo oo aan dhinac kale ka eego de waxaan leeyahay haddaynaan nabadgeliyo iyo istiqraar iyo ammaan haysaninna sidan umaynaan shaqaysaneen yeynaan roolkii dawladda meesha ka saarin. wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac Gaani ayaa qirtay in Sagaljet ay la jaan qaaday tiknoolajiyadda casriga ah waxayna tidhi waxaan u mahad celinayaa maamulka shirkadda Sagaljet oo runtii muujiyay wax wada lahaansho. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa mas'uuliyiinta ama shareholderska shirkadda Sagaljet. waxaa Ilaahay mahadiya oo aan ku amaanayaa shirkadda Sagaljet inay tiknoolajiyadda caalamka la jaan qaaday oo aan ka dalban karo anigoo ceergaabo jooga waxa aan u baahanahay by telephone isla ilbiriqsiyo adeegaasi uu isoo gaarayo dhammaan shaqaalaweynaha shirkadda Sagal ayaan ku amaanayaa waana uga mahad celinayaa. gabagabadii waxaa abaalmarinta shakhsiga ugu shaqada wanaagsan ku guuleystay Iid Cismaan Cali oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Sagaljet iyadoo ay dhammaanba shaqaalaha kala duwan ee shirkadda la guddoonsiiyay abaalmarino ay ku muteysteen kartidii iyo hufnaantii shaqo ay muujiyeen sanadka 2018. Maxamed Jaamac Umal wararka warbaahinta SBC Hargeysa.